waxa ku xiga marka xagaas marina imika number 2 waa iga dabadhaha calooshu ka imanaya okay kaasi wuxuu ku jira kalmadda hit iga dabadhaha hit sit it also sometimes xarfaha marka la qorayo kalmadaha sometimes spelling sida loo qoro laguma dhawaaqa Englishka so imika tusaale dhawaqa wuxuu ku jira kalmadda business iga dabadhaha business business waa arkaysaa waa bu you can see it's bus laguma dhawaaqayo bus oo busness baa la odhanayaa busness may waxaa la odhanayaa business waa marka spellingku waa u dhawaaqo laakiin waa marka na waa kaas iga dabadhaha hal mar السلام عليكم أصحابي كسو دوادا automatic English college ka online iyo offline ba English ka lagu dhigo waa anigo macallin Ahmed maanta waxaan idin wada 10 muhiima today we have a very important lesson save this video inshallah video gan save gareysta inshallah waxaan ka hadlaynaa ama mawduucan wuxuu noqonayaa the phonetic alphabet وما phonetic alphabet what is the phonetic alphabet it's about pronunciation, it's about sound, it's about dhawaqa, sidee loogu dhawaaqa ereyada. Badana waxaana la baraa the regular alphabets. The regular alphabet we all know. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z, and Z. Now you know your ABCs. Next time, won't you sing with me? Kaas baan soo dhiganay. ABC caadi qof walba xarfaha uu garanaya. Dadka inta badan way ku dhawaaqi karaan. But kaanuna la barin waxa weeyaan the phonetic alphabet. The one that we don't really take time to learn is the phonetic alphabet. Arday badan markan in badan wax dhiganay waxaan aragnay phonetic alphabet ka ardaydu ma bartaan. Marka maanta waxaan isla qaadanaynaa dhawaaqa sounds ka English uu ka kooban yahay. ayaan maanta ku dhawaaqayna all the sounds marka videogan daawatid waxaad inshallah maqli doontaa dhawaaq kasta oo English uu ka kooban yahay the alphabet waa 26 letters waa 26 xarfo dhawaaqu waxa weeye 44 dhawaaq aba sometimes waxay yiraahdaan dadka qaar 43 so maanta waxaan qaadanaynaa 44 sounds inshallah marka eri walba xagu ka soo baxayo makharijta iyo carabka dhawaaqa codka xagu yani ka soo baxaya afka ayaan isla eegin inshallah So let's begin. Repeat after me, guys, okay? The first one is E. Dhawaqa ugu horeeya waa E. Okay, iga daba dhaha E. Kaas uu iska fudud yahay Soomaaliga uu ku jira. That one is very simple. It's in the word sheep, jeep, eat. Marka kaas dhawaqa waa E. Uu iska fudud yahay sidaas imika shaashada xagaas ku sawiranta ayaa loo qoraa. Marka one more time iga daba dhaha E. Again, E. Codka kor u qaada E. Good. Waxa ku xiga marka xagaas marina imika number 2 waa iga daba dhaha okay waxa ku xiga afka waa ina sidaa ka dhigtid okay kaasi wuxuu ku jira kalmadda good iga daba dhaha good book look egg look ha odhanin look arday baa tahda look good book ma sidaa waa book good look cook should iga daba dhaha should you should learn languages you should good job kaasi waa waxa ku xiga mid iska yara fudud kaasna waa iga daba dhaha ku jira kalmadda blue true who shoe okay kaasna iska fudud yahay waxa ku xiga line labaad marina dhawaaqaas ku jira kalmadda bed haye waxa ku jira kalmadda sad red head sax waxa ku xiga mid aad u caana kan waa dhawaaq in badan soo noqnoqda waxa weeyaan iga daba dhaha about America good waxa ku xiga iga daba dhaha kani waa Mareykanka dhawaaqa Mareykanka ku jira the American pronunciation
waxaa jira different pronunciations laakiin kan wuxuu jira American pronunciation waa bird shimbirta maxaa lahdaa bird third heard word okay girl very good waxaa ku xiga or iga dibiraha or for door floor store marka waa arki karta spellingku uu kala yara duwan yahay laakiin dhawaaqu waa or mar walba waxaa ku sii xiga cat fat hat okay waa saas weyn waxaa ku xiga cut cup please use the cup to drink please use the cup to drink. please use the cup to drink Please use it can't speak. waxaa ku xiga kan maraykan kuma badna laakiin ingiriis ku badan yahay father arm waxaa ku xiga pot okay kuwaasi waa vowel sounds waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan vowels waa shaqalada vowels waxaa jira vowelska shaqalada marka la isku daro diphthongs baa loo yaqaana kuwii hore kuwan iminka soo qaadana waa monophthongs diphthongs marka la isku daro vowel soundska shaqalada laba shaqo la isku daray cod kala soo baxaya aan isku dayno waxaa ku xiga ear here near okay waxaa ku xiga a rate hate plate okay good job waxaa ku xiga tourist I'm a tourist. I'm a tourist. Horena wax kale haddii si kale ugu dhawaaqdid micnaha isbedelaya. So we say I'm a tourist. Tour. Ku shub waa maxay? Poor. Sama. Pour the tea. Faqiir kan qofka faqiirkan but rich waa taajir. Poor na waa faqiir. Sidoo kale kalmada poor ku shub waa poor. Waxa ku xiga oi. Sida boy. Toy. Joy. Okay. Waxaa ku xiga show. Go. Yes. No. Okay, very good. Waxaa ku xiga air. Hair. Fair. Stare. Care. Okay, waxaa ku xiga I. My. Height. By. Sax. Waxaa ku xiga owl. Cow. How? Now. Very good. Ow. Okay. Imika waan dhameynay vowels shaqaladii waxaan u gudbinaa shabane the consonant sounds. Okay. Are you ready? Let's go. Ta. Ba. Ta. Da. Kuwaas way fudud yihiin. Waxaa ku xiga cha. Sida cheese. Try. True. Chat. Okay, waxaa ku xiga June. July. Justice. Okay, waxaa ku xiga car. Cat. Okay, waxaa ku xiga Gap. Fat. Alif ba ta. That baa ku xiga that. Then waxaa ku xiga that. Then waxaa ku sii xiga sa waxaa ku sii xiga za waxaa ku sii xiga sha then waxaa ku sii xiga ka sida television na kuwaasay fudud yihiin kan muu yara adig yahay waxaa ku xiga nga kaas waxaa ku jira qunna yar baa ku jira nga sida singer bringa waka nga weeyaan okay waxaa ku xiga waxaa ku xiga la ya okay iminka waxaan ku dhawaaqnay wixii dhawaaq oo jiray English luqadda Englishka wax intaa ka baxsan ma jiro especially for American pronunciation marka inta hadda videoga ku soo ceshid waxaad maqli doontaa all of the sounds
oo phonetic alphabetka wixii dhawaaq oo English luqadda Englishka waxa la yiraahdo wixii dhawaaq oo jiray ayaan ku dhawaaqnay intaas baa la isku gegeeyay oo markaas ay dadku ku dhawaaqaan okay marka insha Allah videoska dambe waxaan isku daynaa inaan sii kala saarno ardayda sida uga caawino xaga haddaad jeceshahay luqadda inaad baratid oo in sii kobco sida upgrading iyo updating samaysid nala soo xiriir teamkayga automatic English WhatsApp teamka insha Allah la xiriir sida information u heshid aan si fiican kaaga caawino my name is teacher Ahmed see you next time